Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaarey soo dhawaada waxaa rajeynayaa inaa aad u wada fiican tihiin akhyaarey waxaa ogtihiin Premier League ayaa soo noqday beri ayuuna bilaabanayaa halkanna waxaa u joognaa saacadan inaan falanqeyno aniga iyo saaxiibkay ayaa marka hore kusoo dhaweynaya ها قاري والفيعان ماشان ولا باشالا إذنكن وحرجينا إذنك إنا في عنتين أو جوف معنا قانسان سيدا أكتين بريوا مالنت عيارها بريد دنبو مركا عيار بدن وجرا مانتا فلانقين يا أرسنال يا مارت لستا عيار دونتو بري تيم كنا يكون كلبوا فلانقين دونو حالنا سودو هذا okay akhyaarey haddii aan hore ugu dhaadhacno Arsenal iyo Leicester City beri waxay ciyaarayaan 11 saac oo maalinimo marka ay tahay dhanka bariga Afrika gameka ayaan saaxiibkay waxaan ka weydiinayaa waxyaabaha ku saabsan iyo qaabka uu u dhici doonaba ها مارت جيمشا مارت وحلا قبل لا هورتا مارت current form كودا أي كاسي هنا حالة دودا أصلا أدي وكعسن تاي وبلايال في عنها هذا ستا لستا مارت أيضا ومارت حجاير وهير اللي تا سنة كور يعرف عن مارت مال في عن ميز جارين سي مارت هورا سيزن هورا كله هذا نواب سي اللي تا عرتوي كلام وكب حيان مركا فورم كأصلا أدو في عن هذا okay haddii aan u guda galno Arsenal iyo ciyaaryahanka ayna raadinaysa ee Leicester City Yuri Tielemans maxaa ka leedahay تيلمانس وحالته أصلا إنه هذا السيزون كان أوسن إيمانين محايلة مالها دايته وحركة نيوز آخرناي وحدهن مارت تيلمانس وجوجا إلا يسمى وقدم هذا مارت هل يا كونتراكت هل سنة أوهرة إلا وقدم هذا جوجا which means هل كسنة دور ما هذا حوا فريو كبحة marka Arsenal free day rabta waxay isku celinaysaa wili waxa la 25 milyan keena marka waa ku yar adag tahay ma aqaan inay soo qaado doonto laakiin waxay la tahay inay maaragtay free ku heli doonto okay akhyaarey maxaa leedahay gamekan Arsenal hadda waxa uu soo kacay ciyaaryahan oo hadda ka soo kacay injury maxaa leedahay bench ma ka soo muuqan doona ayagana nooga hor ها وحبنجي كسو مقدون سايلتها فابيو فييرا او ويلي انا عيرتيس اركن قابكه تahay بريمير ليج soo ka ciyaaraya ma arkin iyo maarta Arsenal wili ma ciyaarin waxa kaloo jiro Tomiyasu inoo soo kacay waxa kaloo jiro Smith Rowe asna soo kacay Nelson oo soo kici lahaa laakiin waa injury kale sii galay muscle injury waxa loo bilowdo ku sii maqnaana marka aqaartaas way soo wada kacayaan waxa rajeynaa inay maaragtay benji ka soo wada muuqan doonaan wili waxa maqlay in maaragtay data akhrina news in Ben White xogaasna injury jiro marka dhib ma laha waxa option badan jiro okay haddii aan u dhaadhacno Arsenal iyo Leicester gamekeeda inkastoo lagu ciyaarayo homeka Arsenal maxaa is leedahay gameka ku dhamaan doona Arsenal si fiican u faa'iido doonta ciyaartooda waa tii hore waxa waaye ciyaartooy badan ay ka jiiftay sida maaragtay Odegaard oo kale waa ka jiiftay ciyaartooydu maaragtay Bologna create garay lahaa type gameka ku xiran yahay marka ciyaarayso teamka la ciyaarayso teamkaas dadkii harantinayeen waa la ogyahay ciyaar fiican ma la ciyaareenin Crystal Palace so hadda maaragtay team wada baasanayo wada baashalaya la wada joogaa marka ciyaartooda waa prediction waxa waaye 3-0 dadka midfield ka mid kamid saddexdooda hal gool buu xiri doonaa si aan isleeyahay Saka and Gabriel Jesus okay akhyaarey Arsenal iyo gamekeedana halka ayaa kaga bixeenaa gameka kale isna xiisada leh waxa weeyaan waa Manchester United iyo Brentford Manchester United oo ogtiin inay ka daadsan tahay oo form xun ay ku socota ilaa hadda alla Manchester waa culso wuxuu man malaba alla kuwan qofka arka ku darsanayo marka waxa waaye waa iska maan malabti la sheegayo waaye maaragtay haddana Brentford ay la ciyaareen marka wili qalala player xun ma haysta Manchester United maaragtay waxa waaye quality fiican waa jira laakiin ma aqaan waxa waaye laakiin jabkeeda ku faraxsanaa kulay waxa isleeyahay dagaal ugu dhufo doona maaragtay waxa dhaawacyadooda hadii aan fiirino waxa waaye wax yar waa Antonio Martial iyo Lindelof iyo waxa ka maqan Greenwood oo ciyaaraynin baasanan personal reasons marka waa la garaaci doonaa waxa waa gaala god ku jiro waxa waa ani waan farxaa kuwaas markii la tumo okay oo hadda waxa is leedahay Manchester United waa tripkan badanaysa coachkooda ka waran iyo culturalkooda hadda siday wax u wadaan aad u xun yahay coachku waa fiican yahay laakiin culturekooda iyo qaabka Bologna u ciyaarayaan waxa waaye wixii la sheegayo waa inay ka ciyaaraan horta maaragtay championship inay ka ciyaaraan waa oo maaragtay under 21 inay aadaan waa dadkan dad Bologna meesha ku haya ma aha nin Freddie McTominay wato dad waaweyn kala hor imaha Brighton aqad ka bixisay ugu baasanaa dawladda ka dhideen tookada hore 4 tookada dambe 2 marka waxa waa daalan Brentford dad igu soo orada maaha Arsenal ta ku dhigan waa looga hatta ay ku badiyaan jecel season hore marka waxa leeyahay ciyaartan waxa waaye nasiib wacan leeyahay laakiin 2-1 kale inay ku dhamaanaysa rajana
ciyaaryahanka hadda ay keensadeen waxaa ogtahay waxay keensadeen ciyaaryahankii Rabiot ay keeneen maxaa isleedahay ciyaaryahanka midfield wax uu ka bedeli doonaa Rabiot maaragtay Sky Sport waxaa ka arkaya falanqeynayaan maaragtay in terms of tackle markii loo Freddie McTominay ka badan, in terms of scoring chances markii loo waa ka badan yihiin, in terms of hadii la creating maaragtay kicker waa ka badan yihiin, pass waa ka badan yihiin, pace waa ka badan yihiin. Marka ku jooga waa ka fiican ba aniga qosol brada waa ka daraya wallahi bila waayo waxay replay wuxuu u socdaan ma sheegin inuu maaragtay oo taagnaana ninkaas maaragtay khadka dhex dadka oo hor u baxmaan labadan waxa ku jiro mentality-gooda hore inay aadaan waay dad soo noqonaya ma aha laakiin waa ka taakol fiican waxa United waa xaar ku istaag leh waa brada waa ku dhagaya akhiyaare iyana xagga ayaa uga baxayna gameka kale xiisaha badan isna waxa weeyaan waa Brighton ay ogtihiin inay form fiican ku socdaan iyo Newcastle United Brighton way soo baxaysaa Brighton soo badi doontaa silaya Newcastle iyo Brighton waxaa leedahay Brighton soo badin doonto for what reason Brighton waxa waaye players ugu fiicnaan way iska gadeen Bissouma waxay kala gadeen Cucurella soo lama dhaho Cucurella nin Qatar marka waana kacsan saasatan United garaaceen marka Bologna ciyaarayaan waa aragtay passes ka maaragtay in terms of side meel dheer wax ka arkayaan maaragtay isku xiran Bologna isku fahmayaan marka Newcastle labada lagu cun doona leh okay waa taas xogaa waa iga yaryaabisay Newcastle iyo Brighton marka taana wuxuu yiri waxa Newcastle ayaa laga badin doonaa gameka kale isna jir waxa waaye kan waa iska obvious waa Manchester City iyo Bournemouth Manchester City gameka waa gameesha Haaland iska kacay waa 6 iska dhali doonayso marka waxa waaye Man City badan taa obvious waay ina kasii hadalnama gameka kale isna xiga oo Bridge waxa weeyaan waa Southampton iyo Leeds United Southampton oo darad laga soo badiyay iyo Leeds oo darad ay coachkooda waxa arkay xanaaqsan oo Wolves ay wali labada coach inay isdagaaleen ama ay wax xanaaqsan ay meesha kala tageen inkastoo ay soo badiyeen Leeds gamekan draw waay Leeds iyo Southampton inkastoo Leeds ay fiican tahay laakiin waxa Southampton waxaa yar waa agta dadkii gaarsiiso ma Chelsea inay penalty ku badiyaan marka waxa waaye draw ama akhyaare sida ogtahay horta waxa ogtahay gameka darad aan predict gareynay Arsenal iyo Crystal Palace adi waxa tiri 3-1 hadhay ani waxaan dhahay 2-0 meeshaas marka the correct score aniga helay meesha ilaa hadda waxa ku soconaa galate 1-0 anna waan predict gareynayna hase ahaatee waxa u sii dhaadhaceynaa ciyaarta kale ee bari la ciyaarayo ciyaartaasna waxa weeyaan waxay u dhaxaysaa Wolverhampton iyo Fulham oo waxa ilaahay Fulham noqon doontaa oo meesha kiimaatay ku noqon doontaa laakiin dad kacsan oo xooggan ay ogeen Liverpool soo galay dadka war ilaahay marka qiyaaray Fulham waa adag tahay wallahi gamekaas waxa predictionkiisa wallahi Wolves somaha Wolves wallahi ani Wolves badinay ila tahay 1-0 laakiin Fulham waxa waaye waa adag tahay dadka saa u maleynaa ma ahan laakiin Premier League waxa waaye it's too early to be predicted waxa waaye waa too early waaye in maaragtay wax la predict gareeyo laakiin Fulham waa adag tahay saa u maleynaa ma noqon ma haddana waxa leeyahay Wolves ay badin doonto gameka ugu dambeeya waxa weeyaan Aston Villa iyo Everton Everton waa laga soo badiyay khiyaare marka waxa leenahay Everton iyo Aston Villa waa maaragtay dad oo Premier League legends horta waxa u yihiin tababaro Frank Lampard iyo Steven Gerrard marka maaragtay inkastoo Lampard teamkiisu xoogan yahay Aston Villa marka waana hadana geeb adag Aston Villa waa yara adag tahay marka waxaan waa Premier League wax walba soo dhacay anaga iska predict gareynayna ma ahan anaga resultiga qaabka u dhaceys Ilaahay un baa og marka waxa isla Everton soo badi doonto 2-1 akhyaare ciyaarihii iyo prediction gareyntoona xagga ayaa uga baxaya aniga predictionkii haddaan hal mar si orada u dalmaro waxaan isleeyahay Arsenal waa 4-2 ama 4-1 ay kusoo badin doontaa Aston Villa sidoo kale waxaan leeyahay Coutinho meesha inuu shaqeysan doono hase ahaatee laakiin Everton wali waa xoog badan tahay Everton ayaa 1-0 kusoo badin doonto Brighton iyo Newcastle ayaan dooranayaa oo soo badin doonto 2 ay ku badin doontaa ayaan isleeyahay Manchester waa obvious waa iska badin doontaa laakiin ma aqaano waxay ku badin doonto Southampton iyo Leeds waxaan leeyahay Southampton draw ayuu noqon doonaa gamekan asaga ku raacsanay
Wolves iyo Fulham waxaan leeyahay Fulham ayaa soo badin doonto. Brentford iyo Manchester United na dee mar walba waxaa jeceshahay inaad aragto Manchester United oo la garaacayo. Marka akhyaari ana predictionkii waa kaasa idinkana waxaa ka qabtaan nagula wadaaga qaybta commentiga. Assalaamu calaykum waraxmatullahi